ciidanka dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa goordhow la wareegay deegaanka Qeecad ee koonfurta gobolka Mudug iyadoo ciidamadu ay hadda qarka u saaran yihiin qabsashada magaalada Bacadweyne oo dhawaan uu dib looga soo baxay waxaan rabaa inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Mudug iyadoo dawladka deegaanka Qeecad lagu dilay xubnihii ugu badnaa oo al-shabaab gaadiid dagaal ayaa sidoo kale la burburiyay kadib duqeyn halkaas ka dhacda soo dhawaada saaxiibayaal wararka ka imaanaya koonfurta gobolka Mudug ayaa ku waramaya in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska Danab oo ahaa ciidan laga diray magaalada Muqdisho inay gacanta ku dhigeen goordhow deegaanka Qeecad ee koonfurta gobolka Mudug halkaas oo ay ku dhuumaaleysanayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab wararku waxay sheegayaan intii aanay Danab la wareegin deegaanka in halkaas ay ka dhacday duqeyn culus oo lagu bartilmaameedsaday xubnaha al-shabaab oo deegaanka ku sugnaa iyadoo sidoo kale la burburiyay gaadiid dagaal oo kooxda ay halkaas ku haysatay Qeecad ayaa kamid ahaa deegaanadii dhawaan dib looga soo baxay iyadoo ciidamada dawladuna ay hadda bilaabeen howlgal culus oo ay ku doonayeen inay mar kale dib ugu laabtaan furumihii dagaalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibraahim Sheekh Muxudiin ayaa la sheegay in labaduba ay si wada jir ugu amreen ciidamada in dib loogu laabto furumaha dagaalka oo aan suurtagal lahayn in Bacadweyne iyo Camaaro ay ku sii sugnaadaan kooxda al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandooska ee Danab ayaa xaqiijiyay in hadda ay qarka u saaran yihiin qabsashada magaalada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug waxaana Qeecad iyo Bacadweyne isugu jiraan wax ka yar 7 kiiloomitir ciidamada ayaa sheegay in kooxdii al-shabaab ay ku sugnaa Bacadweyne in hadda xogta ay helayaan ay tilmaamayso inay isaga baxeen magaalada kadib markii militariga Soomaaliya oo ah kumaandooska Danab iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa ka tirsan daraawiishta Galmudug ay hareereeyeen magaalada kasoo bixitaankii furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka Mudug ayaa dadka Soomaaliyeed si weyn uga caroodeen iyadoo oo madaxda qaranku ay sidoo kale saraakiisha ciidamada ku dhalishay inay soo baneeyaan furimaha dagaalka isla markaana aan suurtagal lahayn in deegaano dhiig badan lagu bixiyay dad badan oo saraakiil ay ku jiraan ay ku geeriyoodeen inaanay suurtagal lahayn in si fudud ay ku gashaan ama ay ku galaan gacanta kooxda al-shabaab wararka halkaas ka imaanaya hadda waxay sheegayaan in deegaano u dhaxeeya Qeecad iyo xarxaarka halka loo yaqaano inay ka dhacday duqeyn culus oo lagu bartilmaameedsaday xubno al-shabaab iyo gaadiid dagaal oo ay wateen saraakiishu waxay xaqiijinayaan in ka badan 30 maleeshiyada ka tirsan in lagu dilay halkaasi sidoo kalena gaadiidkoodii dagaalka la burburiyay waxay intaasi ka dambeeyay ayayna ciidamadu gudaha u galeen Qeecad waxa kale oo jira inay jiraan ciidamo kale oo xoogga dalka ka tirsan oo meelo kale oo gobolka Mudug iyana lagu amray inay ka dhaqaaqaan si dib loogu laabto dhammaan deegaanadii dhacay koonfurta gobolka Mudug ee dib looga soo baxay haddaba hadii Bacadweyne gacanta lagu dhigo iyo wixii warar ay ka soo kordho khasaaraha dagaalka ka dhacay Qeecad iyo sidoo kale duqeynta intaba mar walba iyo daqiiqad kasta halkan ay kula soo wadaagaya waxa sax xusid mudan in howlgalkan loogu magac daray kii rajo soo celinta gobolka Mudug ciidamaduna la doonayo in degdeg dib ugu laabtaan deegaanadaasi aad ba mahadsantiin sidee baad u aragtaan dib u laabashada furmaha dagaalka ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aragtidiina commentiga ka dhibta muuqaalkana like saaro oo si share gareeya